madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo isagoona eedayn kulul u jeediyay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shariif ayaa waxa uu sheegay in madaxda dowladdu qorshaha ay ugu jireen in ay qabtaan doorasho sidoo kalena aysan daacad ka ahayn heshiis laga gaaro xasaradaha siyaasadeed ee dalka ka dhex jira. waxaan aaminsanahay in madaxda dowladdu aysan daacad ka ahayn in heshiis laga gaaro xasaradaha siyaasadeed ee dalka ka dhex taagan oo u dhaxeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isla markaasna aysan qorshaha ugu jirin qabashada doorasho heshiis lagu wada yahay ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed. sidoo kale Sheekh Shariif ayaa waxa uu sheegay in dalkan laga keenay meel aad u adag isla markaasna sidaa darteed marnaba aysan ogolaan karin in aayaha iyo masiirka ummaddu ay u afduubnaato shakhsiyaad gaar ah oo kursiga jeclaysanaya inay sii joogaan waa sidoo hadalka u dhigay isaga oo ka digay dhibaato uu sheegay in ay u muuqato in madaxda qaranku ay doonayaan inay mudukararsi ku sameystaan taa uu sheegay inay tahay wax sharciga balmarsan. ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ahna hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqay guddoonka golaha shacabka in ay ka fiirsadaan tallaabooyinka aan dastuuriga ahayn ee ay ku dhaqmayaan isaga oo uu sheegay in ujeedku yahay xil kordhin oo uu xalaaleysanayo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa sidoo hadalka u dhigay. hadalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli weli xal rasmi ah aan laga gaarin arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka isla markaasna shirka go'aanka looga gaari lahaa ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah madaxda maamulada dalka oo cabasho ka ah madaxda Soomaaliya ka oo ka socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. ku dhawaad 50 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay isbitaalada waaweyn ee ku yaala Muqdisho kuwaasi oo ku waxyeeloobay qaraxyadii iyo weeraradii xalay ka dhacay hoteelka Elite ee Muqdisho. isbitaalada ugu badan ee la geeyay dhaawacyada waxaa ka mid ah Umma, Dar Shifa, Madina iyo Erdogan Digfer. isbitaalka Umma oo deegaan ahaan u dhow halka uu xalay weerarku ka dhacay ayaa la dhigay dhaawacyo gaaraya 18 kuwaasi oo qaba dhaawacyo kala duwan. agaasimo ku-xigeenka isbitaalka Umma 10 ilaa 5 barkii qaraxa ka dhacay magaalada isla markii qaraxa aan maqalna runtii diyaaran iska noqonay waxaan u yeernay shaqaalaheena walow uu ku soo aaday xilli shifti kala guur ah oo shaqaale cusub soo galaan kuwa kalena ay baxayaan adii dhaawac wuxuu soo bilowday 5 iyo 20 soo bilowday ilaa wuxuu socday ilaa 8 habeenimo uu socday dhaawac nolol keenay wuxuu isku jiray runtii dhaawac aad u culus iyo dhaawac dhexdhexaad ah runtii dhaawacii cuslaa oo xaaladdu ay khatar tahay ambalaasada waxaan u gudbay isbitaalada referka ah sida Erdogan oo kale ayaa loo waday. bukaanada guud ahaan aan diiwaan gelin waa 18 bukaan waxaa ku jirta ilmo yar oo aad soo aragteen oo 2 jir ah oo xabad gurigeeda ugu tagtay xabadin laga bixiyay waxaa la sameeyay ilaa 4 qalliin oo dhammaan lagu guuleystay alxamdulillah. bukaanada hadda intaa soo aragteen ayaa isbitaal ku jirta inta kalena qaarna waa refer gareynay qaarna ehladooda wateen oo meelaha u dhadhow markaas ay geysteen. xaaladda hadda isbitaalka way degan tahay bukaanadana intooda badan waa nabad qabaan alxamdulillah. maya waxaan hor keenay 2 bukaan runtii oo xaalad khatar ku jiray intii shaqadooda bilaabanba meesha ku dhintaba marka 2 dhimatay oo meed ahaan markii isbitaalka laga baxshay oo ay ehladooda wateen. dadka lugahooda ku baxay waa 4 dadka dhimashadana waa 2 dadka anaga aan refer gareynay oo isbitaalada u dirnayna waa 4 ayagana. abbaara 11 iyo qadar 30 daqiiqo barqanimo ay dagaalyahano ka tirsan xarakada Al-Shabaab waxaa la sheegay in walxaa qarxa ay ku qariyeen dusha sare maqaayad ku taala xaafadda suuqa Timcade degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. qarxaas waxaa la sheegay in la eegtay maqaayadaas dad ku sugnaa waxaana geeridu ay gaaraysaa ilaa 6 qofood 2 kamid ah waxay ahaayeen dumar waxaana dhaawacmay 15 kale. 6 kamid ah dhaawacyada waxay ahaayeen kuwa garaab ah oo xaaladoodu ay tahay mid halis ah. sidaas waxaa xaqiijiyay mid kamid ah saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mawlid Xuseen Guhaad ayaa wafdi u hogaaminayo
waxa ay socdaal ku tageen degmada Garbaharey oo ka tirsan gobolka Gedo. Socdaalka gudoomiyaha waxaa ku wehelinayay siihayaha xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, iyadoo ay qayb ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka, wasiirro, siyaasiyiin iyo xubno kale. Muhiimadda ay halkaas u tageen waxaa lagu tilmaamay inay tahay sidii ay uga soo dhagax dhigi lahaayeen dugsi sare oo la doonayo in laga hirgeliyo gudaha degmada Garbaharey. hase yeeshee xubnaha mas'uuliyiinta socdaalka ku tagay halkaasi ayaa sheegay in ujeeddada ay tahay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ardayda ku nool gobolka Gedo kuwaasoo doonaya in himilooyinka ay higsanayaan ay ka dhabeeyaan, iyadoo mas'uuliyiintan ay sidoo kale gaareen degmooyinka Doolow iyo Balad Xaawo oo gobolka Gedo ka mid ah. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qayb ka ah wafdiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ay ku tageen gobolka Gedo ayaa la hadlay warbaahinta iyaga oo ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay in iskuulla waxbarasho laga hirgeliyo gobolka Gedo. maanta waxaa idin timid dawladdiinaasa badan way bilaabatay, wax badan baa samrayseen, waxaan wadnaa mashaariic baan wadnaa, iskuullaan dhigaynaa, waxaan hadda soo dhignay Garbaharey, waxaan dhigi doonaa Doolow. dhagaxdhigga iskuulka Khaalid ibn Waliid laga hirgeliyay Balad Xaawo. iskuulkan dadka reer Balad Xaawo asalka yaqaano iskuul hore u shaqeyn jiray oo ahaa tin iyo burburkii dawladda Maxamed Siyaad Barre Balad Xaawo ma helin iskuul dugsi sare ah oo dawladda federaalka ay dhagax dhigto. gobolka Gedo guud ahaan maanta waa maalinka waxbarashada u tahay gobolka Gedo, annagoo safar ku soo marnay Garbaharey, haddana Balad Xaawo ku sugan, laaban doonana Doolowna u laaban doono oo dhammaan dugsiyo sare oo bilaash laga daahfurayo. Cabdullaahi Goodax Baraysi hayaa xilka wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya iyo Mawliid Xuseen Guhaad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ayaa ugu dambeyntii la hadlay shacabka, waxaana ay kula dardaarmeen inay ilaashadaan iskuullada laga hirgelinayo qaybo ka mid ah gobolka Gedo. waxaan rabaa intaas daan iraahdo ahamiyadda ay leedahay degmadan inaan wax yar qeexo. annaga markaan iskuulla bixinayno waxaan fiirinaa ardayda. ujeeddada ugu weyn ee dugsigan sare loo dhagax dhigayo maanta waa in ardayda dugsiyada hoose ka soo baxay aysan ka hayaamin. waxaa la qabtiri doonaa ee dawladda ha qabtiri doontaa waxbarashadii dhallinyarada ka baxda iskoolada hoose dhexe inayan aadin gobollo fog ama meelo aan munaasab ahayn oo aanu garanayno. waxaan u mahadcelinaynaa dawladda dhexe oo maanta wafdi anigu aan hogaaminayo oo wasiirku xubin ka yahay inaanu dhagax dhigno iskuulkan. waxaan rajaynaynaa hay'addii loo xilsaaray sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay u soo afjarto. kormeerkan oo ujeedkiisu ahaa u kuurgelidda habsamo socodka shaqooyinka ka socda xarumaha dawladda ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Abwaan iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud waxay ku booqdeen xarumaha kala ah canshuuraha bariga, laanta canshuuraha ee gaadiidka, garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyo bangiga dhexe ee dawladda. ugu horeyn mas'uuliyiintan ayaa kormeerkooda ka bilaabay xarunta canshuuraha bariga iyo laanta canshuuraha gaadiidka ee gobolka Bari, iyagoo mid u soo indheeyay xafiisyada ay ka kooban yihiin xarumahan, waxayna shaqaalaha ka xog wareysteen habsamo socodka shaqada iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan. sidoo kale waxa ay kulan la qaateen maamulka xarumahan iyagoo warbixin ka siiyay shaqooyinka ay bulshada u hayaan iyo caqabadaha haysta. sidoo kale mas'uuliyiintan oo sii wata kormeerkooda ayaa waxay booqdeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyagoo u kuurgalay shaqooyinka ka socda garoonka. sidoo kale waxa ay kulan is-xogwareys ah la yeesheen maareeyaha garoonka, taliska ciidanka ammaanka ee garoonka iyo qaar ka mid ah howlwadeennada garoonka, iyagoo warbixin ka siiyay shaqooyinka ka socda garoonka diyaaradaha oo saameyn xooggan uu ku yeeshay cudurka corona. gabagabadii mas'uuliyiintan ayaa booqday xarunta bangiga dhexe ee dawladda, waxayna mid u soo indheeyeen xafiisyada uu ka kooban yahay xaruntan oo ka mid ah goobaha ugu shaqada badan ee gobolka Bari, waxayna shaqaalaha ka xog wareysteen habsamo socodka shaqada iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan. sidoo kale waxay kulan la qaateen maamulka bangiga iyagoo warbixin ka siiyay shaqooyinka ka socda xaruntan. mas'uuliyiintan ayaa inta ay ku guda jireen kormeerkooda waxay maamulkii shaqaalaha xarumaha ay booqdeen kula dardaarmayeen in laga wada shaqeeyo horumarka, sidoo kalena laga qayb qaato kor u qaadista ammaanka gobolka Bari. kormeerka mas'uuliyiintan ayaa sii socon doona iyagoo ku booqan doona guud ahaan xarumaha dawladda ee gobolka Bari. ayaa xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar
ayaa maanta kulan la qaatay saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kulanka ayuu ugu horreyn ugu dhageystay mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar warbixin la xiriirta weerarkii ka dhacay shalay Muqdisho. saraakiisha laamaha ammaanka Mahdi Maxamed Guleed Qadar waxa uu amray in baaritaan saxan oo dhameystiran ay ku sameeyaan saraakiisha laamaha ammaanka dhacdadii shalay. wuxuu sidoo kale ku adkeeyay inay la wajibaaraan dadaalada xilligan lagu xoojinayo taas oo xilligan loogu dhigayo dalka mid ammaan ah. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xilligan ku dadaalayso in shacabka Soomaaliyeed ay helaan amni iyo xasilooni waara. laamaha ammaankan waxay wadaan baaritaano kala duwan ay ku xaqiijinayaan guud ahaan amniga caasimadda. maanta waxaa kulan yeeshay guddigii ra'iisul wasaar ku-xigeenka ahna siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha shir gudoominayay. guddiga waxaa ka soo qayb galay guddiga dhan. waxaa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaankii iyo habkii loo sameyn lahaa. waxaan magacaabnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono. waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga. soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratibmi lahaa faldambiyeed ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan. waxaan lagu ballamay 10 bere oo ku qorneed dekreetadii ra'iisul wasaaraha gudahooda in baaritaan hufan guddiga keenaan. guddigana shaqadiis waa bilowday. maamulka degmada Cadaado ayaa maanta kormeer ku tagay qaar ka mid ah ceelasha afka bannaan ee ku yaala gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud kuwaas oo bilihii ugu dambeeyay dhowr qof ku dhaceen isla markaana ay ku geeriyoodeen. gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yaro Xayl Shaarbacde oo kormeerka hogaaminayay ayaa indhayn kadib shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Cadaado. waxa uu kaga dhawaaqay go'aano ay ka soo saareen ceelasha afka bannaan kuwaas oo khasaare kala duwan dhaliyay. waxaana gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Cadaado uu sheegay inay la wareegi doonaan dhammaan ceelasha haddii muddo ku siman hal bil ay wax ka qaban waayaan milkiilayaasha ceelasha dhibaatada kala duwan dhaliyay. gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yaro Xayle waxa uu carabka ku dhuftay in dhowr jeer ay digniino noocan oo kale ay hore u baxsheen laakiin aysan dhaqan gelin isla markaana hadda kadib degmadu dhaqan gelin doonto awaamiirta kala duwan ay soo saarto dowladda hoose. waxaa ka soo baxay maamulka degmada Cadaado awaamiir ku socota dadka iskale ceelasha ku yaala Cadaado. waxaan faraynaa marka dadka ceelasha iskale muddo bil ah in ay qabaan ceelashaas looguna talagalay bishaas gudaheeda in la daboolo oo la xiro. dowladda hoose ee degmada Cadaado haddii ay dhici weydo bishaas wixii ka dambeeya ceelka allaale ceelkii dabool la'aana waxaa la wareegi doona dowladda hoose ee degmada Cadaado. waxaa haray oo aan rabaa inaan digniin ka siiyo inta u dhaxeeya bishaas cid allaale cidii ceelashaas dhibaato ay u geysteen ama xoolo ha ahaadaano ama dad ahaadano ayaga ayaa lagu leeyahay wax allaale waxay dhib keenaan. waxaan rabnaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan uga digno dowladda hoose ee degmada Cadaado waxay u qabatay bil muddo laga bilaabo 17 bisha 8aad waxayna ku eg tahay 17 bisha 9aad. waxaan rajaynaynaa in la aqbalo oo si sahlan loo fududeeyo. waxaan hadda fududeynay jidka ka baxa suuqa ariga ee gaara ceelasha saddexda ceel ee dhaxmarto. maamulka degmada iyo xaafadda Karaama ayaa ka shaqeynaya saacadan la taagan yahay jeebkooda iyo qarashkooda ku dabooleen. waxaan rabnaa hadduu alraale ka dhigo ceelasha kale dhammaantood waqtiga haddii la gaaro bisha oo muddada dowladda hoose u qabatay dowladda hoose degmada Cadaado ayaa la wareegi doonta dhammaan ceelasha ku yaala reer Cadaado.